waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da welina waa murtidii iyo mahmaahihii ay soomaalidii hore u saarisay dugaagga iyo duurjoogta qaarkood. dhegaystayaal, diinku wuxuu ka mid yahay nafleyda xamaaratada ama baku socotada aynu ku magacowno. xeebaha banaadir intooda badanna diin ayaa looga yaqaan. wuxuu ku jiraa cawska iyo caleenta dhirta uunka ku nool. siday cilmibaarayaasha qaarkood xaqiijiyeenna sanku neefle oo dhan buu ugu cimri dheer yahay. inta la hubiyeyna 180 gu ayuu gaaraa. wuxuu ku nool yahay miyiga. markii magaciisa la soo qaadana waxaa la xusuustaa 2 tilmaamoodoo uu gaar u leeyahay, duurjoogta kalena uu kaga duwan yahay. tilmaanta koowaad waa socod gaabida uu caanka ku yahay. il maalmeed oo idil hadduu soconaayo 10 mitir wax ka badan ma gooyo. taasna waxay Soomaalidu ku muujin jireen sheeko ay mala awaaleenoo bahalkaa ku saabsan. waxaa la yidhi diin baa maalin maalmaha ka mida wuxuu dhaar ku maray isaga cid aan ahayn inaanay kalkaan reeraha u dhaaminayn. markaas baa awrtii la soo qabtayoo heeryadii iyo haamihii inta la saaray caynka iyo bayda loo dhuujiyey. inta la isugu xidhiiriyey ayaa hoggaankii gacanta loo geliyey. 6 aqoolood hadduu maqnaa oo maato iyo waayeelba oon loo baaba'ay ayaa goor fiida sharqantiisii la maqlay. saa waa la farxay. waxaa la fishay haamihii oo buuxa in kol dhow awrta laga soo dejin doono. hase ahaatee markii loo soo dhowaaday oo la yidhi war sharqantu waayo, ayuu ku jawaabay war waa aniga oo ceelkii u socdee hadalkiina iga daaya yaanan daahine. dabadeedna sheekadaa oo la baxday diinkii dhaanshay ayay Soomaalidu waxay ugu mahmahadaa kolba qofkii laga waayo wax loo diray inuu keeno, ama si aan la filayn ula daaha hawl uu ku maqnaa oo muddaba laga sugaayey. markaas oo kale ayaa lagu yidhaahdaa war hebelow waa ku sidee, ma diinkii dhaanshay baa tahay. tilmaanta labaad ee diinku uu dadka xusuusiyaa waa qolfaha adag ee oogadiisa ku gadaaman. sheekooyinka hiddaha ee Soomaalida sida ku xusanna bahalku waagii hore ma uu lahaan jirin qolfahaas adage. kol dambe ayuu rabbi ku dahaaray, sabab bayna lahayd. waxaa la yidhi abuurkiisii hore wuxuu diinku iska ahaa hilib jiir iyo caddiin isugu jira oo iska gurguuranaya. maalintii dambe ayaa waxaa u kooday shimbirihii geyiga ku dhaqnaa koox ka mid ah. waxay ku tashadeen waagu hadduu beriyo inaysan meel fogba u qaraab doonane ay diinka ku kallahaan. isaga inay kolba intay kooxi ku degto ay cadcad uga dhargaan ayay ku heshiiyeen. tashigaa shimbiraha bahal maqlaayey ayaa markiiba inta orday diinkii u tegey oo ku yidhi waryaa diinow, shimbiro way kuu koodeen oo sidaa iyo sidaa ayay ku tashadeen, maxaad yeeli? kolkaas buu ku jawaabay meeshii la iigu tashanayey sow ilaah ma joogin. isla goortiiba qolfaha adag ee haddaba ku dadan ayaa lagu daboolayoo gaashaan looga dhigay. dabadeedna shimbirihii ku ballansanaa inay ku soo duulaan ayaa arooryo hore soo aggabraday. tii inta hollisay cad ka goosa maagtayba gafuurka ayaa qalloocday. ilaa maantana waa sababta uu afka shimbiruhu la qalloocan yahay, siday Soomaalidii hore ku sheekayn jireen. kolka hadalkii ahaa meeshii la igu tashanayay sow ilaah ma joogin oo uu diinku ku badbaaday kuna liibaanay ayaa waxaa laga dhigtay mahmaha uu ruuxa taagta darri ku laab qabowsado mar walba oo ay digniini ka soo gaadho cid ka awood roonoo waxyeello ula soo socota. waxay kaloo Soomaalidii hore ku sheekayn jireen inuu diinku jecel yahay wixii wanaagsan ee soo maray xusuustooda. wuxuu iska diidaa ilaa waxaa wanaagsan ay mar labaad soo marayaan inuu u mohdo wax liita oo ilowsiiya xusuusta macaan ee maankiisa ku harsan. si ay taas inooga dhaadhiciyaanna waxay ku sheekeeyeen deegaanta xilliyada aaranka ah dhulka ka baxda hadduu daaqo in aanu u hamoon cawska jiilaal ee dabjoog iyo duurjoogba ay xoolaha kala daaqaan. xilli roobaad wixii baxay mooyaane dhirta caddaata iyo cawska qalala midnaba kuma hambaaso, si macaanka dowgii hore aanu u ilaawin ama aanu afkiisa uga tirtirmin. taasna waxay u cuskan jireen oraah isaga qudhiisu inuu yidhi loo saariyo oo ah afkii aan doogga ku daaqay dareema ku daaqi maayo. hal abuurkii haddana jiraaga weyn ahaa ee allaha u naxariistee la odhan jiray Maxamed Cumar, huryana lagu naanaysi jiray, ayaa hees jacayla oo uu beri tiriyey wuxuu ku darsaday oraahdan ay diinka u saariyaan. isaga oo bahalkaas isku masaynaya ayuu gabadhii uu u heesayey wuxuu dareensiinayaa
iyada barashadeedii kadib dumar kaleba inuu ka go'ay si xusuusteeda aanay xusuus kale uga dheehin. heestaas oo jacayl daran ku magacaaban meelisyadeeda kuwa ay sheekada diinku ka muuqataana waxay ahaayeen diigga habeenkiio markuu waagu daaro cuduryamood ogsoonto dayaxuu barkaga maqan dabuubta ugu yeedhaa. diinkuna ma dhuunyado dareemada abaartoo afka wuu u diidaa hadduu gogi ku daaqee. anna dooqu yaab leh siduu iigu kaa diray dawooy adiga mooyee dumar kale ma eege. diigga habeenkii markuu waagu daaro ogsoonto dayaxuu barkaga maqan dabuubta ugu yeedhaa. diinkuna ma dhuunyado darimada abaartu qofka wuu diida adugugii ku daaqe adaduuqu yaab lahay siduu iigu kaa diray way adiga mooye dumar kale ma eeg. diinkuna ma dhuunyado darimada abaartu qofka wuu diida adugugii ku daaqe adaduuqu yaab lahay siduu iigu kaa diray way adiga mooye dumar kale. heestaas oo sidaan soo sheegay uu huryar ahaa waxaa codkiisa dareen taabad kale inagu soo gaarsiinayay maxamed axmed oo ka mid ah fanaaniintii heesteenna casriga ah hirgelisay ee milgadeeda bulshada soomaaliyeed ka dhaadhicisay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.